Ku soo dhawaada warbixin khaas ah oo idinka diyaarinay kooxda Hidaha iyo Dhaqanka ee Codsan Academy. Waanu ku booqannay hoygooda ay ka degan yihiin magaalada Hargeysa. Daawasho wacan. dadku waxa ugu warartaa xog ka siisaa kooxda goorta soo asaasatay hadda waxay marayaan waxyaalaha dadka u qalatan iyo sida waxay ku socdaan bulshada warbixin guusi رابعيو رواد مرت على خليه كسلو وكاجي والفوق تالي عدد ما خمسة شهر الله وصل بحكومة حبيسكية عزة كان يتعرض لأني أروح كوبرن ليجي شباب حلقة سنوات من قبل أعتقد بشيء سجلات شيء توكيجي إنه هذا راح أعتقد تمدو سنة دي سجل دولار سنة جوزي دي لواضح إنه غير مستقبل الكريه عزة كان يمي أحس إن عن حق كوبرن تاعي شنيو صدق of وبشر صدق النور وحلا عيارين العيد كله تقولون لا يودون هذين أصلا عن صدي يا هذين أصلا بطركي يا هذين أصلا سيلي جيلا لما أنتي أسقوا دول عسى كريم وانا يرو يبو تعانت أسقوا هيا يبو يمتلون أو يسكرون وما تبي هذا البحرين الله يمويه هذي نيجي تقول أنا أصلا عيد كريم كذا وكا أوريس ما له طبعا سعبان ناس عبيس بيفكري سعبان بيفكري تقول لك عصا كذا wixii intaasi ka dambeeyayna waxaa noo suurta gashay inaanu hore u galno qaybaha hore ee kooxda halkaasi ay ku soo bandhigeen ciyaar dhaqameed. Habayaan wali waxay ku guda jirnaa warbixinta ay ku eegaynay Codsan Academy. Hadda waxaan hore u soo galay gudaha hore afaafka waxaana tagi doonaa qolaalka iga dambeeya halkaasina waxaan ku tagi doonaa koox dhalinyaro ah oo lagu carbinayo qaabka kala duwan ee dhaantooyinka loo garaaco ama se loo barto. Gudoomiyaha guud ee kooxda Codsan Academy Mr. Cabdiraxiin ayaa igu weheliyay igana qayb ah warbixintan iyo fiidiyay afaafka hore u tagayna qayb badan ayay ka kooban tahay sidoo kale daawadii waxa xusud mudan halkan waxa yaala qayb kamid ah agabka hidaha iyo dhaqanka burkii oo shabeena tan oo kale wada gudintaada la geliyay markaas keenta lagu garaaca marka waxyaalaha kale isku leefaqan oo isku dhooban isku fujisay in gurdu tuulada ku tagay mas'uulaa laga hadlana nala soo aliyo kolkii aan jaantar saaray iridii ay ka socotay ciyaar dhaqameedku kolkiiba waxa aan la kulmay kooxda ku jirta tababaradeedii kala duwan isla mar ahaantaasina ku tababaranaysa qaybaha kala duwan ee dhaantada inkastoona si fiican u aqoon ciyaar dhaqameedka yiilkeeda geesteeda ayaan ka galay aniguna aan dhaantada ka jiibiyay waxaana ahayd barbarkay ka baxdaa waba kala qaleen adigu magacaaga ku bilaabay waxna waxa goortan Codsan Academy ku soo beertay waxyaalaha ku dhigayna kooxda ka mid noqoto inuu maxaan ku dhahay ciyaar dhaqameedka iyo ciyaaraha kale waxyaalaha ku kala duwan horta marka hore ku bilaabay magacaygu waa Sayid Cumar Saciid Xiriiri waxaan ahay xubin ka tirsan ururka Hidaha iyo Dhaqanka Codsan Academy su'aalaha weydiisay ama su'aalaha weydiisay kala jawaab doono ururkan waxaan jeclaystay amba aan jeclaysigiis ku soo biiray bacda Ramadaan ka hor amba Ramadaan ka hor aan idhaahdo taasoo igu dhalisay jibo maxay tahay aan xiisanay baashan aad u xiisanay dunida barto alxamdulillah horta in badan bartay dhaqan inta kuma ay ku xidhoon insha Allah inta ay ka sii badan barto waxay tiraahay sadaqo ciyaaraha isla galmay qaba ko iyo waxa shawdan yaaraynu sharafta dhawri mayso dhaqankii hidaheena dhallaanka bari mayso shawda baaca waajibkooda dhabbada mari mayso isha dheere dhulkayaga annaga u dhimanayso dhawey allahayow taa maxaa laga magaceeda taa waxaa laga magaceeda shawda dhalinyaradiin marka dhalinyarada waa la sii dhalinyarada ama hadleen gowaabin oo ciyaarta aad iyo badan maasan
codsanay jiro joogay hoobahow yaalay ogeyn idinkaa samaato badaney hoobahow yaalay hagaag daawadayaal barnaamijkeenii khaaska ayaynu ku eegeyna kooxda codsan academy ee magaalada hargeysa intaasi ayaa unoogey waxay gala qaybgelayay isla mar ahaantaasina barnaamijkaasi ii fududeeyey inuu soo gaadho daawadayaal gudoomiyaha guud ee kooxdaasi master cabdiraxiim sudaanka jaanka bahar barbar iyo dhammaanba xubnaha kala duwan ee kooxda codsan academy waxay cod dheer idinku baaqayaan idin leeyihin kaalay oo ku soo biyo kuna soo dhawaada kooxda hooyada codsan academy